mas-uulkii ugu sareeyay kooxda al-shabaab ee deegaanka Buule Xaaji oo dhawaan shabaab laga saaray oo isku soo dhiibay dhinaca ciidamada dowladda iyo kuwa maamulka Jubbaland Axmed Madoobe oo saraakiishii iyo ciidamadii fuliyay howlgalka shabaab looga saaray deegaankan ballanqaad u sameeyay ayaynu warbixintan caawa ku soo koobi doonaa haddii aad nagu cusubtiin fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo saaxiibada inagu xiran aragtidiinana qaybta hoose comment kaga soo dhiibta wararka ka imaanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ururka al-shabaab ay bilaabeen inay isku soo dhiibaan dhinaca ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland kadib markii al-shabaab gacantooda laga saaray deegaano cusub oo ka tirsan gobolkaasi. wakaaladda wararka dowladda u faafisa ee Soona ayaa baahisay 4 sarkaal oo ka tirsanaa al-shabaab una qaabilsanaa deegaanka Buule Xaaji oo ay dhawaan ciidamada dowladdu la wareegeen ay isku soo dhiibeen dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya. saraakiishan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya isu soo dhiibay ayaa kala ahaa mas-uulkii ugu sareeyay deegaanka Buule Xaaji ee al-shabaab, madaxii maaliyadda deegaankaasi, madaxii sirdoonka iyo nin kale oo isna al-shabaab madaxda uga ahaa dhinaca qaadista xoolaha loo yaqaan sakawaadka. ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland ayaa maalmo ka hor al-shabaab ka saaray deegaanka Buule Xaaji ee gobolka Jubbada Hoose. ciidankan ayaana halkaasi ka wada howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo. waxaa geesta kale maanta gaaray deegaankan Buule Xaaji oo maalmo ka hor shabaab laga saaray madaxweynaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ay wehelinayaan xubno ka tirsan labada gole ee maamulkaas iyo saraakiil ciidan. Axmed Madoobe ayaa kulan gaar ah la qaatay dadka deegaanka, saraakiisha iyo ciidamadii ka qayb qaatay howlgalkan shabaabka looga saaray deegaankan. qiyaastii 80 kiiloomitir ayuu u jiraa magaalada Kismaayo ee caasimadda u ah maamulka Jubbaland. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa sheegay in saraakiisha iyo ciidamada ka qayb qaatay howlgalka deegaankan shabaabka looga saaray inay heli doonaan mudnaan, wuxuuna dadka deegaanka u ballan qaaday in halkaasi ay gacantooda ku sii nagaan doonto waa dhinaca ciidamada ammaanka dowladda federaalka iyo kuwa Jubbaland oo aysan marnaba dhici doonin in dib u gurasho ay ka sameeyaan deegaankan. wuxuuna qeexay in halkan laga hirgelin doono dhammaan adeegyada muhiimka u ah bulshada. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa ammaan weyn waxa uu hogiyay dadka deegaanka uu sheegay in door ay ku lahaayeen in shabaabka maamulaya deegaankan dhowrkii sano ee ugu dambeysay in gacantooda laga bixiyo. Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe waxaa deegaankan ugu horeeyay madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo maalintii deegaankan shabaabka laga saaray durbadiiba gaaray. ciidamada ammaanka kuwa dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ayaa qorsheynaya in deegaankan ay uga sii gudbaan deegaano kale oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose oo wali ay shabaabku maamulaan.